iyaga iyo kuwa nabadiidka duurka ku jira ay isku mid u yihiin lagama yaabo amniga inuu askarigu waxba ka qaban karo askarigu amniga waxba kama qaban karo waxaad kaga qabanaysaan waa waxaad dareenka shacabku idiin qabo iyo sida shacabku idinla shaqaynayaan middaasaa asal waa midda mudnaanshaha iyo muhiimadda weydiinay taasaa la rabaa markaa inaad sii xoojisaan markaasaad shacabkana wax u taraysaan lafihiinana ilaalinaysaan haddii shacabku kaa shaqeeyo oo maanta kalsoonida afmadow ka jirta ay jiri weydo oo ay nabadiinkii kuu soo dhuumiyaan oo ay kuu soo qariyaan oo guriga uu kuu soo galo oo markaa xerada jirta xaafadaada iriddeeda wax kuu dhigo waad garan kartaa dhibaatada ka imanaysa laakiin kalsoonida shacabku markay jirto isku xidhnaanshaha shacabku markuu jiro kala warhaynta shacabka iyo ciidanku iyo maamulku markuu jirto waxa weeyaan gabadhu waxay kari kartaa inay tidhaahdo xalay markaan seexanayna meeshaas sidan mayna ahayna malaha waxbaa la geliyey oo kuwii baa yimid taasaan rabaa markaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan idinkaga mahad celiyo idinka iyo saraakiishiina soomaaliya maanta hal cadow bay leedahay halkaa cadow oo ay leedahayna waa shabaab cudurka gaajada jahliga marka amni la helaa intaba laga fikeri karo inta uu midabkaaga leh noocaaga sheeganaya waan kula dhasheed kule intaas sabaynaya uu dhibaatadii intaasoo dhan baabi'inayo waxba kuuma aha maanta magaalada afmadow ciidan baa jooga difaacoodayna ku jiraan degmada oo dhan waxaan u malaynayaa ciidan baa jooga waa daraawiish Soomaaliya ciidankaas iyo boolis iyo nabad sugid Jubbaland maanta lama odhan karo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed baa jooga oo ka hawlgala amnigiinana saasuu ku waxaysan yahay ood ku adkaynaysaan saasayna ciidannimadiina ku adag tahay deegaankiina iyo dalkiina aad maanta gacanta ugu haysaan waxaan rabaa inaad sii dadaashaan oo aad labanlaabtaan dadaalkiina oo aan ku talagalno Jubbaland iyo deegaankeeda iyo dalkeeda intaba inaynu ka shaqayno Soomaaliyana aan gacan siino wixii aan cadowga ka qaban karaan ka qaban waxaa dhibaato ku ah waddanka oo culays ku ah halkaa cadow in laga wada shaqeeyo waxaa maanta waddankii uu marayaa dhul xor ah oo shabaab laga xoreeyey oo dhowr iyo 10 sano nabad ahaa oo aan shabaab ku jirin in maanta dawladdii Soomaaliya ciidankeeda intii la daabulo ciidankii Turkiga lagu soo tababaray Maraykan tababarayay cid waliba tababarayay intii la qaaday in la yiraahdo deegaanada lagu xoreynayo maanta waxaa la leeyahay afmadow waa la rabaa in la xoreeyo afmadow shabaabka jooga waayo warbaydinkaa maanta shabaab oo maanta shabaab laga xoreynayo la leeyahay afmadow waa shabaab laga xoreynayaayo badaxa waa laga xoreynayo baardheelaa laga xoreynayo doolo baa laga xoreynayo waxa laga xoreynayo wax la garan karo maaha dagaalkii shabaab baa u baahan kii shabaab baa yaal cadow baan leenahay annaga Soomaali dhexdeeda iyo wiilka isteelahan iyo calanka watay cadow isuma in noocaa looga shaqeeyana wax sax ah markii wax kale la waayay ee sheeko kale ay socon weydo waxay noqotay in la furfuro oo la burburiyo ciidamada Ismaaciil ka dhacday inta magaalo oo kale oo dhan bay ka dhacday waxaad tusaale idinku filan reer Doobley taliyii daraawiishta idinla joogay ma haystaan ood ogtihiin aad maqasheen saxaafadan aad ka maqasheen in dawladdii Soomaaliya culays ay u soo saarto leeyahay warniyo waxaan rabnaa inaad nala shaqeyso maxaad nala shaqeynaysaa waxaan rabnaa inaad nala burburiso afmadow oo ciidankeeda nala baabi'iso oo ciidanka xoog gaar ah ee shaqada ku jira aad baabi'iso waayo maxaan sameynaa lacag baan ku siinaynaa kala furfur laba isugu dir kana baabi'i kana dil waxaad tiraahdaa meesha dawladda kama jirto waxbana ma nihinba dad baabaay baan waa wax intee laga arrintaas maxay kaga duwan tahay ciidankii badaxa wajooga iyo doola waxa lagu dhibaatada loogu geystay maxay maanta badaxa ku mutaysatay in la burburiyo oo xabadi ka taagan tahay oo dhibaatada halka ay gaarsatay maanta maxay ku mutaysanaysaa badaxa maxay ku mutaysatay waa midaas oo kale midda afmadoona laga ee la rabay dhibaatadaas inay nooca ku noqoto ee lagu yidhi ma hadow hawshaa qabo sidaa yeel
lacagtaasaan kuu soo diray lacagahaad maqashayna laga sheegay saxaafadda waaro 3,000 toroyahana way jirtaa 80,000 la yidhi ciidanka xoolo ugu qalo kuwa qoqaanna ku keeno kadib waxaa tidhahdaa qolada maamulka aan dabada xabad ka geliyo kadib sidaa yeen oo madaxweyne la hadlayo oo taliyada wasbiil la hadlayo oo sarkaal kale la hadlayo oo qof waliba hadalkaa uu kula hadlayo waad garanaysaa intuu leeyahay waxay aad u fiican tahay oon rabaa inaan isagana ku abaalmariyo kuna dalacsiiyo inta xidhiirkaasi socday intaasoo dhan inaan khadka kula jira oon dhegaysanaynay oo laga hadlayey oo waxaan loo sheegayaa tahay masaalix shakhsi ah mahad hadduu og yahay ciidankiisu inay nugul yihiin oo wax alaaliya wuxuu sheegay intay qaatay kaalaha wax burburinay leen isaga laftiisu ciidanka uu xukumo wuxuu garanayay waxa ku jiraysay yihiin wuxuu madaxweynuhu ciidankaygana waan ogahay waxa la ii sheegay waxay aqbali karaan ma waxay ciidankayga la igu farayaan lama anna ma aqbali karo iyaguna ma aqbalayaan waxaasaana la wada waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo lacagtii inuu yidhaahdo xageeda xisaab dawladda ay ku leedahay accountiga numberkiisa ha lagu shubo dawladda ay gala wareegto sababtoo wuxuu yidhi waxa de anigu weji aan ku qaato ma garanayo ilaan wejiga lagu siiyey waa inuu wax burburiyo miyuu burburin karaa damiirkiisu miyuu siiyey maya soo maa hadduu damiirkiisu siin waayo dee sabab uu sii isticmaalo ma laha marka sababtoo waxa isagoo filana wuu yaqaanaa dariiqa loo soo marayana wuu yaqaanaa taa waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo gaashaan loo hay gaashaanla dhuxuu qaadanaya waa lagu dalacsiin qof kasta oo shaqada noocaasa iyo siday tahay wax uga qabtana waxaan rabnaa inuu helo abaalmarinteeda qof walba waa lala xidhiidhayaa qof walba waxbaa loo sheegayaa meel walba way ka dhacday qof waliba waxa uu uga tago Soomaaliya dawladda waxaa qoraysa taariikhda taasaan rabaa inaan dawladda idhaahdo aan isku tashanno aan inagu xisaabtanno cadowgeena waa naqaanaa aan iska celinno Soomaali baan nahay qolo kale ma lihin Jarmal ma lihin Belgium ma lihin Ethiopian ma lihin Kiyaan ma lihin Soomaali baan nahay teena inagoo ku dagaalamayna nimankaan iska celinno dadkeena aan ka xoreysano dalkeena aan wax kaga qabsano midaasoo iskuma ogaano dadkiinu sida idin rabaan waa inaad la shaqeynaysaan haddayna idin la shaqeynayn laba shaqeyn kartaan sidaa yeela sarkaalku ha isku daya iyo ka maamulkii wiilka askariga iyo ka dhufayska ku jira iyo ka roondada u baxaya inay ogaadaan xogtiisa ka wada shaqeeyaan haddaan la isqalbi ogeyn oon la wada hadlaynin oon askariga la wacyi gelinaynin oon loo sheegaynin xaqiiqada uu ku jiro qofna qofka kale qalbigiisa ma jeexi karayo midaas haasala saaka ciidan daraawiish boolis nabad sugid waxaan is leeyahay dadka degan afmadow iyo ciidankoodu waa meesha aan arkay isugu duuban yihiin ee ugu fiican yihiin ama nabad sugid ha noqdeen ama boolis ha noqdeen ama daraawiish ha noqdeen kalsoonida iyo isku duubnida iyo dareenka shacabku qabaay waa meesha ugu fiican aan is leeyahay shacabkeeduna kulli waa wada ciidan hooyooyinku waa ciidan aabbayaashuna waa ciidan dhalinyaraduna waa ciidan taa laga shaqeeyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa sarkaalkii inaan halkan ku dalacsiiyo hortiin aan ugu xidho garaadihiisa waxaa loo sheegayey weliba codadka qaarkoodna sidoodaan u haynay oon u dhegaysanaynay waxyaalaha qaarkood markaa in xataa saxaafadda la geliyo lasii sheegay macno ma samaynayso waa ceeb qaran bay noqonaysaa laakiin intaasaa Soomaali ugu filan waxa meeshaa ka jira isku duubni baan isku ognahay dadaal baan isku ognahay waa wada joognaa
waan hawlgelaynaa